السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. halkan waalkini baahinta wararka fadlan hadii ay tahay markii ugu horeysay soo booqato channelkeena waxaa xushmad la kaaga codsanaa in aad halka cas aad cadeyso oo subscribe saartid sidoo kale kambalelka furatid si aad la socoto fiidiyoda aan soo gali doono maalmaha soo socda. yarkii kufsaday Xamdi Maxamed Faarax oo ah inaan dhigan jirtay jaamacad kadibna dhameysay inta kadibna sharqool lagu sameeyay deedna ragu yeedheen marka yar kamida ayaa la soo qabtay oo la soo helay iyadoo la soo helay ayaa waxa yarkan warkiisu sheegaya inuu gabadhan uu kufsaday isagoo kiiskana isku cadeynayo. ciidanka amniga ee Galmudug ayaa xalay abaarasadii dhexe ku guuleystay in ay gacanta ku soo dhigaan eedeysane Maxamed Ibrahim Cismaan 24 jir ah kaasoo ku dhuumaleysanay guri ku yaal magaalada Cadaado. eedeysane Maxamed Ibrahim ayaa lagu tuhmayaa inuu ku lug lahaa kiiskii marxuumad Xamdi Maxamed Faarax ee ka dhacay magaalada Muqdisho. kiiskaas oo ah kiis kursi ah ayaa waxa kufsaday ninkan iyo 10 nin oo kale oo ku noqonaya ninkan 11 inta kadibna colaad ama caro ay u qabeen gabadhii ayaa waxay ka soo tuureen fooq 6 dabaq ah oo ku yaal magaalada Muqdisho. 2 bilood ka hor ayay ahayd markii ay gacanta ku soo dhigeen ciidamada amniga Galmudug ee magaaladaasi Gaalkacyo wiil dhalinyaro ah oo xasuuq wadareed ka soo geystay duleedka magaalada Muqdisho. wasaaradda amniga Galmudug waxay bogaadinaysaa dadaalka ciidamada amniga iyo taageerada ay shacabka Galmudug la garab taagan yihiin ciidamadooda. xigasho Cali Aadan Muumin oo ah wariye ka tirsan magaalada dowlad goboleedka Galmudug ayaa warkan ku soo qoray barta Facebook. waa wariye lagu kalsoonaan karo ama warkiisa la qaadan karo. haddaba daawadayaal comment ku soo qor sababta maxay noqon kartaa sababta uu dilay ama sababta laga yeersiin doono ninka la soo qabtay ee kiiska lagu soo qabtay sababta uu dilay kala gabadha yar ee miskiinta ah insan wax ay ka geysatay ayna jirin. commentiga daawada ku soo qor. waxaan mar labaad iyo mar saddexaad iyo mar afraad ka codsanaynaa inaad channelka subscribe saartid halka yar ee cas aad noo cadeysid way waxay dib oo kugu leedahay aysan jirin ba daawadayaal. hadalkaygana qiimeeya maanta daawadayaal halka cas noo cadeeyo sidoo kale like saara fiidiyoga inta fiidiyo kula doono anigoo baahinta wararka ah. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. kulanti dambe oo xiiso leh.